bismillaahi raxmaani raxiim kula wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal kusoo dhowaada wararka raadiyo kulmiye qodobadan idiin hayna waxaa ka mid ah ciidamada ammaanka oo xiray inta badan wadooyinka muqdisho iyo wafdi ka socda dalka qatar oo muqdisho soo gaaray madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Jabuuti oo ku heshiiyay in la dardargeliyo xiriirka ka dhaxeeya labada dal kadib kulan ay ku yeesheen wadanka Jabuuti xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya kuna sugan Kismaayo oo dawladda federaalka ku eedeeyay in ay faragelin ku hayso doorashada Jubbaland u diyaargarowga doorashooyin iska soo horjeeda oo laga dareemayo magaalada Kismaayo shacabka ku noolaa degmada Awdheegle iyo deegaanada hoos yimaada oo bilaabay in ay ka barakacaan guryahoodii wasiirka amniga Soomaaliya iyo saraakiisha ciidamada ee ku sugan Dhuusamareeb oo ka wada hadlay amniga magaaladaasi shacabka Muqdisho aragtidooda ka dhiibtay khilaafka siyaasadeed ee u dhaxeeya dawladda federaalka iyo maamulka Jubbaland ee ku saleysan doorashada shirweyne looga hadlayo wacyigelin la xiriirta arrimaha xagjirnimada oo Muqdisho ka socda Afghanistan oo balan qaaday in ay ciribtiri doonto kooxda Daesh iyo Iran oo Mareykanka kaga digtay qabashada markabkeedii la sii daayay markale ku celi warbali waran maxaan kaaga waramaa xaaladda dalka de ma run baad rabtaa mise been run baan rabaa been raad ma leh kulmiye ka dhageyso wayna ka hadaba mar kale duur wanaagsan dhageystayaal waa Isniin 19 bisha 8 ee Agoosto sanadka 2019 Axmed Saciid Axmed ayaa warkeena duhur soo saaray Nuur Maxamed Cali iyo Farxiyo Xuseen Cali ayaa soo jeedinaya markana u diyaar garoow warkii oo faahfaahsan ciidamada ammaanka ayaa maanta xiray wadooyinka muhiimka ah ee magaalada Muqdisho gaar ahaan wadada Maka al-Mukarrama iyo wadooyinka soo gala oo dhan wararka ay helaysa idaacada kulmiye ayaa sheegaya in ciidamada ay wadada u xireen wafdi heer sare ah oo xalay soo gaaray magaalada Muqdisho wafdigan ayaa waxa ay ka socdaan sida la sheegay dalka Qatar waxa ayna Muqdisho u yimaadeen in xukuumadda ay la saxiixdaan heshiis ku saabsan dhismaha dekedda Hobyo oo horey loo sheegay in dawladda Qatar ay dhisayso ciidamada ayaa gaadiidka dadweynaha iyo kuwa gaarka loo leeyahay waxa ay u diidayaan in ay isticmaalaan wadooyinkaasi xiran iyagoo dib u celinaya waxaa sidoo kale jirta in goobaha qaar ay ciidamadu u xireen baqdin laga qaba in ay dhacaan falal lidi ku ah ammaanka wafdigaasi iyo wixii warar ay ka soo kordhana waxaad kula socon doontaan wararkeena iyo barnaamijyadeena soo socda hadduu alla idmo madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Jabuuti ayaa waxa ay ku heshiiyeen in la dardargeliyo xiriirka ka dhaxeeya labada dal kadib kulan ay ku yeesheen wadanka Jabuuti Axmed Saciid Axmed ayaa ka waramaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo shalay ka ambabaxay magaalada Muqdisho isla markaana gaaray wadanka Jabuuti ayaa maanta waxa uu dalkaasi kula kulmay dhigiisa Jabuuti mudane Ismaaciil Cumar Geele waxaana ay yeesheen wada hadallo miro dhal ah oo ku aadan sare u qaadida xiriirka xooggan ee labada dal madaxweynayaasha waa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo mudane Ismaaciil Cumar Geele ayaa ku heshiiyay in la dardargeliyo iskaashiga labada dal oo ah mid ku dhisan walaalnimo iyo wax wada qaybsi intii uu kulanku socday labada madaxweyne ayaa isku soo hadal qaaday xiriirka geeska Afrika gaar ahaan xiriirka urur goboleedka IGAD waxaana labada madaxweyne ay ku heshiiyeen in Soomaaliya iyo Jabuuti ay iska kaashadaan wax kasta oo ku saabsan danaha labada dal madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa madaxweynaha Jabuuti mudane Ismaaciil Cumar Geele uga mahad celiyay kaalinta ciidamada Jabuuti ay ka qaadanayaan nabad ilaalinta Soomaaliya gaar ahaan gobolka Hiiraan oo ciidamada Jabuuti oo qayb ka ah howlgalka AMISOM ee Soomaaliya ay ku sugan yihiin madaxweyne Farmaajo waxa uu uga mahad celiyay ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya dadaalka miro dhalka ee Jabuuti ay markasta la garab taagan tahay walaalahooda Soomaaliya wafdiga madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee la kulmay madaxweynaha Jabuuti mudane Ismaaciil Cumar Geele waxa sidoo kale qayb ka ahaa wasiirka wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta agaasimaha guud ee madaxtooyada iyo sidoo kale xubno kale oo ka socday dawladda federaalka aad baad u mahadsantahay Axmed Saciid markana Kismaayo xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya kuna sugan magaaladaasi Kismaayo ayaa dawladda federaalka Soomaaliya waxa ay ku eedeeyeen in ay faragelin ku hayso doorashada Jubbaland dhinaca kale u diyaargarowga doorashooyin iska soo horjeeda ayaa laga dareemayaa magaaladaasi Kismaayo wariyahana Farxaan Maxamed Xuseen oo si dhow ula socday ayaa warbixintan nooga diyaariyay
magaalada Kismaayo waxaa ku sugan xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya kuwaasi oo sheegay inay halkaasi u tageen sida ay u socoto doorashada maamulka Jubbaland iyagoona taageeray sida ay wax u socdaan goobjoogna ka ahaa doorashada guddoonka baarlamaanka maamulka Jubbaland xildhibaanada ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya isla markaana ku sugan magaalada Kismaayo ayaa waxay soo saareen war-saxaafadeed ku aadan doorashada maamulka Jubbaland iyagoona ugu baaqay dowladda federaalka Soomaaliya inay faragelinta ka dayso doorashada maamulka Jubbaland xildhibaan Cabdirasaaq Maxamed Axmed Jindi oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya oo ka mid ah xildhibaanada tagay Kismaayo oo la hadlay idaacadda kulmiye ayaa dowladda federaalka Soomaaliya ugu baaqay inay faragelinta ka dayso doorashada maamulka Jubbaland isagoona sheegay inay dhawaan dhacayso doorashada madaxtinimada maamulka Jubbaland procedure-ka soo socday iyo faragelinta lagu haayo Jubbaland iyo khaasatan procedure-kan socday iyo doorashooyinkan Jubbaland natiijadiisa loo socday inuu soo baxo madaxweyne la doortay oo ama bedelo madaxweynihii waqtigiisa uu dhamaaday madaxweyne Axmed Madoobe oo ama asaga uu soo noqon doono asaga musharax oo tartamayo ama musharaxiin kale inta tartamaysa uu soo baxo laakiin anaga waxaan rabnaa inay wax u soo baxaan saan ku ballansanahayna live baa loo soo deyn doonaa doorashada markay dhacayso marka intaasaan meesha hadafka ugu weyn oo laga rabo ay tahay baarlamaankiisa loo soo xulay iyo odayaasha u soo xuleen iyo ergada procedure-kaas oo dhan maasha Allah waxa waxba kama aanan qabin haddana waxaan rajaynaynaa natiijada gabagabada inay wax fiican noqdaan insha Allah waa iska macruuf oo dawladdeenu inay faragelinta noocaas ay samayso faragelin ba'an oo ay beeshii caalamka dagaal ugu jirto oo mataqaanaa ciidamadii joogay ee amniga sugi lahaa ay wuxuuna interfere ku hayso oo waliba mararka qaarkood waraaqa wiifta iska keenay soo gaarto go'aan ay bixinayaan wax alla wixii ka soo baxay ma ogolin yaa turaki ayaga ay wataan mid weyn aniga ma aqaanee hadduu soo bixi lahaa xataa ma diidi lahaayeen iska qaateen intaanaba waxba la soo saarin dhinaca kale magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubbada Hoose waxaa ka socda qabanqaabada laba doorasho ee lagu dooranayo madaxweynaha maamulka Jubbaland kuwaasi oo ay kala wadaan baarlamaanka maamulka Jubbaland oo dhawaan doortay guddoonka baarlamaanka maamulkaasi sidoo kale dhinaca guddiga ay doorteen musharaxiintan wali isdiiwaan gelin xildhibaanada ay soo xuleen waxay wadaan sidii ay u dooran lahaayeen iyagaba madaxweyne isla markaana u balansan inay dhacdo doorashada 22 bishan oo ah maalinta ay dooran rabaan baarlamaanka maamulka Jubbaland madaxweynaha maamulkaasi gudaha magaalada Kismaayo ayaa waxaa laga dareemayaa xiisadaha doorashooyinka maamulka Jubbaland oo ah kuwa iska soo horjeeda inta badan uu ka taagan yahay khilaaf xooggan hase yeeshee waxaa laga dhowr sugayaa waxyaabaha ka soo baxa doorashada madaxtinimada maamulka Jubbaland oo dhacayso 22 bishan sida ay sheegeen guddiga doorashooyinka maamulka Jubbaland shacabka ku noolaa degmada Awdheegle iyo deegaanada hoos yimaada ayaa waxa ay bilaabeen in ay ka barakacaan guryahoodii sida warkan uu gobolka Shabeellada Hoose inooga soo diray wariyaheena Axmed Abuukar Sabriye wixii ka dambeeyay dagaalkii xooganaa ee qaraxyada ku bilowday oo dhawaan ka dhacay degmada Awdheegle ee gobolkan Shabeellaha Hoose waxa ay shacabka ku nool degmadaasi iyo deegaanada ku teedsan ay bilaabeen inay ka soo barakacaan halkaasi qulqulka dadka ka soo barakacaya deegaanada Malabli iyo Awdheegle ayaa laga dareemayaa magaalooyin ay ka mid tahay Afgooye si aysan saameyn ugu geysan dagaalo xoogan oo ay sheegeen in ay ku dhex mari karaan halkaas al-shabaab iyo ciidamada dawladda dadka ka soo barakacaya deegaana ay ka mid yihiin Malabli iyo Awdheegle oo ay ka socdaan howlgallada lagula dagaalamayo al-shabaab ay dawladda ka bilowday gobolkan Shabeellaha Hoose ayaa lagu arkayaa iyaga oo deegaameysanaya deegaano duleedka ka ah degmada Afgooye iyo gudaha degmada walow aysan ku dhiiran la hadalka warbaahinta dadkaasi ku soo barakacaya Afgooye ayaa qaarkood oo aan isku daynay inaan la xiriirno waxa ay noo xaqiijiyeen in guryahoodii goobahooda ganacsi iyo beerahoodaba ay uga soo carareen cabsi darteed waxaase ay meesha ka saareen in aysan jirin cid ku soo khasabtay in ay ka soo barakacaan deegaanadooda dhinaca kale ciidamada dawladda Soomaaliya gaar ahaan kuwa danab ayaa dhaqdhaqaaq ciidan oo amni xaqiijin ah waxa ay maanta ka wadaan deegaanka Bariire ee duleedka degmada Afgooye kadib dagaal culus oo uu saqdi dhexe ee xalay ku dhex maray deegaankaas iyaga iyo al-shabaab ciidamo fara badan ayaa lagu soo waramayaa in lagu daadiyay meelaha duleedka ka ah Bariire halkaas oo ay maanta ka wadaan dhaqdhaqaaq military iyo howlgallo miina baaris ah dagaalkii xalay ka dhacay deegaanka Bariire oo ahaa mid xoogan ayaa waxaa la sheegay inuu ka dhashay khasaare labada dhinac ah balse uu taliska ciidanka xoogga sheegay in dagaalka ay ku dileen 20 dagaalamo oo ka tirsan al-shabaab iyadoo wali aysan al-shabaab war ka soo saarin dagaalkaasi oo xubno iyagu ka tirsan ay weerarka ku qaadeen fariisimo ciidan oo ay danab ku leeyihiin deegaanka Bariire oo duleedka ka ah degmada Afgooye Axmed Abuukar Sabriye idaacadda kulmiye Shabeellaha Hoose wasiirka amniga Soomaaliya iyo saraakiisha ciidamada ee ku sugan magaalada Dhuusamareeb ayaa waxa ay ka wada hadleen ammaanka magaaladaasi iyo sidii loo sugi lahaa
maxamed cabdiweli tooxo wariyaheenna ayaa warkan dhuusamareeb inooga soo diray. wasiirka amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow oo soo gaaray magaalada Dhuusamareeb ayaa waxa uu kulan la qaatay saraakiisha laamaha amniga ee ku howlan adkeynta amniga caasimadda Dhuusamareeb. kulanka ayaa looga hadlay laba jibaaridda dadaalada lagu adkeynayo amniga guud gaar ahaan inta uu socdo shirka dib u heshiisiinta ee dhawaana ka furmaya magaalada Dhuusamareeb looguna diyaar garoobayo dhismaha galmudug loo dhan yahay. saraakiisha ayaa wasiirka uga warbixiyay sida ay u wadaan amni sugidda caasimadda galmudug ee Dhuusamareeb iyo howlgallo kale oo ay ka sameeyeen deegaano kale oo ka tirsan galmudug sida deegaanka Camaara. wasiirka amniga gudaha ayaa ciidanka ku amaanay shaqada adag ee ay hayaan waxaana ku booriyay inay sii wadaan si loogu guuleysto. waxaan la kulmay ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan waxayna warbixin naga siiyeen amniga galmudug gaar ahaan magaalada Dhuusamareeb iyo howlgale ay ka sameeyeen meelo ka baxsan magaalada Dhuusamareeb. xaqiiqada waxaan bogaadinayaa ciidamada kala duwan qaybahooda inay wadaan howlo lagu dardargelinayo amniga iyo deegaanada galmudug sidoo kale magaalada Dhuusamareeb. marka ciidamada qaybahooda kala duwan waa bogaadinayaa waxaan leeyahay shaqo fiican ay siin shaqadiina halkan ka sii wada. sidoo kale warbixin waxay igu siiyeen inay howlgal ku soo qabteen 3 dhagar qabayaal ah oo al-shabaab ah. 3daasna waxay ka soo qabteen Camaara. marka shaqo fiican ka socoto waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogan u sheego waxaa bilaawdeen in ergada loogu talagalay shirkada washinta inay ka soo qayb galaan ay yimaadeen magaalada Dhuusamareeb intooda badan. ayadana waan bogaadinayaa mar dhow hadduu Ilaahay subxaanahu wa tacaala shirkada washinta ka furmi doona magaalada Dhuusamareeb. marka waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad in reer galmudug ay tashadaan ayna dhistaan maamul u dhan yihiin ay kulsoon yihiin in dhistaan urujeyna hadduu Ilaahay raad. dhismaha hay'adaha dowlad goboleedka galmudug dhammaan reer galmudug ayuu ugu baaqay inay ka faa'iideystaan shirka dib u heshiisiinta ayna dhistaan maamul loo dhan yahay si danahooda uu uga shaqeeyo. maxamed cabdiweli tooxow idaacadda kulmiye Dhuusamareeb. shacabka muqdisho ayaa waxa ay aragtidooda ka dhiibteen khilaafka siyaasadeed ee u dhaxeeya dowladda federaalka iyo maamulka Jubbaland kaasi oo ku saleysan doorashada maamulkaasi. cali cilmi salaad ayaa warkan inoo faahfaahinaya. qof walba waxa uu walaac ka qabaa xaaladaha ka dhalan kara waqtiga kala guurka ah ee doorashooyinka madaxtooye iyo midda baarlamaan ee maamulka Jubbaland oo wajahaya caqabado badan. dowladda federaalka Soomaaliya iyo beesha caalamka ayaa u muuqda in ay qabaan aragti iska agdhow oo ku wajahan doorasho xor iyo xalaal ah oo ka dhacda Kismaayo inkasta ay guddiga doorashooyinka iyo xuduudaha ay ka soo horjeedaan talooyinka xukuumadda iyo midda beesha caalamka. shacabka Soomaaliyeed ayaa ku biiray dadka qaba walaaca iyo cabsida laga qabo deganaansho la'aanta siyaasadeed iyo midda amni ee ka dhacda deegaanada maamulka Jubbaland haddii aysan wax iska bedelin sida ay haatan wax u socdaan. qaar ka mid ah shacabka magaalada Muqdisho oo aan maanta la dhaxbarnay codbaahiyaha KNN ayaa cabiray dareenkooda ku aadan xaaladda doorasho ee maamulka Jubbaland. aniga bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan u arkaa doorashada Jubbaland in lagu saleeyo rabitaanka dadku ayaga xur ah qofkay rabaan inay doortaan uma baahna ummadda Soomaaliyeed maanta aniga wax sameeynay aniga wax xoog ku marsiinayo looma baahna dadka in rabitaankooda la tixgeliyo. dimuqraadiyadda aan qaadanay iyo federalismku waxay ku dhisan yihiin rabitaanka dadka. waxay ku dhici kartaa inay dhacaan dagaalo sokeeyo baqaka iyo gaajo in Soomaaliya dib u laabato horeynay u socotaan doorasho xal iyo xalaal inay ka dhacdo insha Allah. warniyo waxa laga dhaxli karaa an doorashada Jubbaland oo dhiig farbadan oo ku daato Kismaayo marka reer Jubbaland ee ka dhacdo hees doortaan faraan laga bixiyay dhibaato badan ka imaan karta dil faragaliyo doorashada reer Jubbaland. waa ku wanacsanahay nimankaas ay doorashada u wadaan waan rajaynaynaa wax fiican inay ka soo baxaan kadibna dawladda dib iska fahmi doonaan waxna aysan ka dhici doonin. guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha maamulka Jubbaland ayaa shalay warqad diidmaha u diray wakiilka gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya James Iswan taas oo ahayd in aysan dib uga dhicin doorashada madaxweyne ee Jubbaland 22 bishan. lama oga halka ay ku dambeyn doonto xaaladda Jubbaland balse waxa ay soo taraya walaac laga qabo in dagaal sokeeyo ay martigeliso xarunta gobolka Jubbada Hoose ee Kismaayo.
shirweyne looga hadlayo wacyigelinta la xiriirta arrimaha xagjirnimada ayaa ka socda Muqdisho. Shirkaasi wuxuu u dhaxeeyaa wasiirada wasaaradaha warfaafinta ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed. Sidoo kale waxaa lagu casuumay oo ka qaybgalaya warbaahinada madaxa bannaan iyo ururada bulshada rayidka ah. Gabagabadiisa ayaa maanta la joogaa. Waxaa ku sugan halka shirku uu ka dhacayo wariyaheena Axmed Maxamed Ibrahim oo u waramay Axmed Saciid. Axmedow maanta wasiirada warfaafinta ee dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada iyo waliba agaasimayaasha warbaahinta madaxa bannaan ayaa ku kulmay magaalada Muqdisho. Kulanka ayaa waxaa looga hadlayay sidii looga wada shaqeyn lahaa daminta colaadaha, baahinta fariimaha nabadeed iyo waliba difaacada dalka iyadoo aanan ka marnayn la dagaalanka waxyaabaha loogu yeero argagixisada. wasiirka warfaafinta ee xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maarey wuxuu sheegay in dalka dhimaalo badan ay dhibaato ka jirtaan kooxaha loogu yeero argagixisada ka beddelkeedana loo baahan yahay in meel qora looga soo wada jeesto isla markaana hal aragti oo midaysan laga wada qaato iyadoo la wacyigelinayo bulshada Soomaaliyeed si arrinkaasi ay u istaagi lahayd isla markaana ay ugu baraarugi lahaayeen. wasiirada warfaafinta maamul goboleedyada waxay sheegeen kan Puntland baa ugu horeeyay wuxuu yiri deegaanada Puntland kooxda Daesh ayaa weerar badan ka geysto dagaal baan la galnaa diyaaraan loo yahay dagaal wada jir ah aan uga galno kooxaha loogu yeero argagixisada. wasiirka warfaafinta koonfur galbeed Sheekh Xasan Cabdi wuxuu sheegay in al-shabaab weerar ay ka geystaan qaybo ka mid ah deegaanada ayna diyaar u yihiin in geestooda ay ka qaataan dagaalka lagula jiro al-shabaab iyo weliba kooxaha ay ugu yeereen argagixisada. warbaahinta madaxa bannaan waxay sheegeen inay diyaar u yihiin in laga wada shaqeeyo wacyigelinta iyo weliba difaaca dalka iyo waxyaabaha loogu yeero argagixisada. wariyaheena Axmed Maxamed Ibrahim ayuu kaasi ahaa. warka duhur ee KNN ayaad wali dhageysanaysaan. dowladda Iiraan ayaa Mareykanka kaga digtay in ay isku daydo qabashada markabkeedii shidaal oo ay bishii hore jasiiradda Gibraltar ku qabteen ciidamada badda ee Britain. markabkan oo laga bedelay magaciisii hore ayaa ka soo dhaqaaqay jasiiradda Gibraltar 12 habeenimo saacadda maxalliga ah ee jasiiraddaasi. markabkan ayaa la qabtay 4 bishii hore ee July kadib markii looga shakiyay in uu shidaal u siday dowladda Suuriya, taas oo ka hor imaanaysa cunaqabatayntii midowga Yurub ay saareen xukuumadda Bashar al-Assad. jimcihii ayay ahayd markii maxkamadda sare ee Washington amartay in la soo xiro markabkan shidaal ee dalka Iiraan laga leeyahay, balse Tehran ayaa arrinkaasi kaga digtay Washington. jasiiraddaasi ayaa dhankeeda iska diiday dalabka kaga yimid dowladda Mareykanka ee ah in loo soo gacan geliyo markabkaasi shidaal ee dalka Iiraan uu leeyahay. markabkan ayaa waxaa saaran shaqaale gaaraya 29 ruux oo u kala dhashay dalalka Hindiya, Ruushka, Latvia iyo Philippines. ugu dambeyntiina dhageystayaal madaxweynaha dalka Afghanistan Ashraf Ghani ayaa ballan qaaday in uu ciribtiri doono kooxda la magac baxday khilaafada islaamiga ah ee Daesh kadib markii ay Daesh sheegatay mas'uuliyadda weerarkii dhimashada badnaa ee ka dhacay caasimadda dalkaasi. hadalka madaxweyne Ghani ayaa ku soo beegmaya iyadoo dalka Afghanistan looga baroor diiqayo 63 ruux oo ku dhimatay qarax lala eegtay xaflad aroos oo ka soconaysa galbeedka caasimadda Kaabul. ugu yaraan 182 ruux oo kale ayaa ku dhaawacantay weerarka. waan u aargudi doonaa dhiig walba oo laga daadiyay ruux shacab ah, ayuu yiri Ghani. waxaan la daalaadhaceynaa sidii aan kaga hortagi lahayn ISIS. waxaan qaadi doonaa argoos si aan ku ciribtireyno Daesh, ayuu hadalkiisa sii raaciyay madaxweynaha dalka Afghanistan. inkastoo ay ururka Taliban iska fogeeyeen mas'uuliyadda weerarka, haddana waxa uu ku soo aadayaa xilli Mareykanka iyo Taliban ay wada hadallo uga soconayaan magaalada Dooxa ee dalka Qatar. guud ahaan warkii raadiyo kulmiyaad kala socoteen waa naga intaan dib u kulmi doono waxaan idin leenahay nabadgelyo.